hooyo Maryan iyo hooyo Xareedo muuqaal laga soo duubay ayaa ku baahay baraha bulshada iyaga oo xaaladoodu ay tahay mid aad u liidato. koox xolwadeena ah oo ka socday TV-ga raadiyaha maanta ayaa tagay halka ay ku nool yihiin. xaaladda ay ku nool yihiin waa mid adag. waxa ay hoydaan aqalkan aad arkaysaan ee roobku uu ka soo gali karo afarta dhinac. markii hore ma ayna haysan wax ay ku jiiftaan ugol ah. ha yeeshee gabdha daawaday muuqaalkii hore looga duubay ayaa gurmad u sameeyay oo soo gaarsiiyay labadan sariir. aniga oo horboodayo howlwadeennada TV-ga iyo raadiyaha maanta ayaan go'aansanay in aan gaarsiino kaalmo kooban oo aan uga qidmeynay barnaamij ka baxa raadiyaha oo aan ugu magac darnay afuri walaalka. hooyo Xareedo iyo sidoo kale hooyo Maryan waxa ay iminka ku nool yihiin xaalad aad u liidato. weli waxay u baahan yihiin gurmad aan sahlaneyn. hooyo Maryan iyo hooyo Xareedo labadooduba waa laba qof oo da' ah. hooyo Xareedo ayaa awooda in ay dhaqaaqdo oo ay dab ka shido. hooyo Maryan lixaadkeedu ma dhameystirno. waxa ay qof walba oo muslim ah looga baahan yahay in uu garab istaago labadan hooyo ee xaaladan ku nool. waxaan ku sharaxaa mahaan iska joognaa waxaan ka codsanaynaa inay noo soo gurmadaan. hadda ka horna waa naloo soo gurmaday oo waa nala gaarsiiyey. hadda maalinkii nala duubaya iyo beriga xataa isku sima ihin oo ummaddu waa noo soo gurmatay. haddana gurmadkiiyaan ka rabnaa. anunkuna waa u duceeyaynaa iyakuna waa u sidaqo ayahaysanaa. waxaan haddaan aan wax allo waxay noo soo dhiibaan aan isaaga habboonnahay oo ka duceeyaynaa hon qofkaas ahayhayn. sida aad maqlaysaan hooyo Xareedo weli waxa ay u baahan yihiin iyada iyo walaasheedba in loo gurmado oo gargaar la soo gaarsiyo bini'aadanimo. aqalka ay degan yihiin waa kan cooshada ka samaysan. dabcan roob mihigaan baa da'ay dhowrkii saacadood ee la soo dhaafay amba labadii maalin ee ugu dambeysay ka da'ay gobolkan Banaadir. marka waxaad dareemi kartaa adiga oo ku jira guri sar ah ugu yaraan roobku uu dhinac ka soo deeyo guriga dhibaatada aad la kulmi karta. marka waxaad qiimaysaa markii aad aqalkan degan tahay halkan uu ka duleelo kor uu roobku ka soo galayo xaaladda aad ku jiri karto. inaga oo ka soconna TV-ga iyo raadiyaha maanta waxaan jeclaysanay in aan hooyo Xareedo lacagtan guddoonsiino si labadan habeen ay uga afuraan. soo iga guddoon ka guddoon. alxamdulillah intii noo soo dhimata ajar iyo xasan allaha siiyo. intii hadda noo timi ajar iyo xasan allaha siiyo. anaga waqti walba waxaan u baahannahay dadka walaalta ah noo wiil iyagaa ah gabarna iyagaa noo ah wiil iyo gabadheena waaye ilmaha waaye inay noo soo dulmadaan inay wax noo soo dhiibaan inay dal iyo dibadba noo fiirsadaan. dad oo maanta shaqaysantana ma ahayn qofta noo shaqaynayo waxaan siin lahaa iyaga waaye. khayr allaha siiyo waa u duceynaynaa waa u duceynaynaa ilaahay idantiisa. ducada meel walba allah intii daal jooga daal hooya aabba la dhigo. meeshii Maryan jiti nabadii allah tamarsiiyo bala dhacis reedeen allah inta dhigo yada barasiyada lucul allah inta dhigo bala dhacis reedeen nin walba muraad la tiina awladaas awlad allah siiyo. tii baariyaas raba bari allah siiyo. nin walba tii baxo barabada sahal abuna allah siiyo. waa u duceynaa ilmaheena aad iyo aad waa u duceynaa. aniga sababta ana waxa way ducada inta adagnahay mooyee waxa aniga aan haysan ma ducadaas aniga inta adagnahay ma waa duceynaa. mata walaalahay noo soo dumayeen qar allah siiyo magan alleeyihiin marato allah sahalo. dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel bay joogaan waxaan ku boorinayaa in ay ka qayb qaataan gurmadkan loo sameynayo hooyo Maryan iyo hooyo Xareedo oo xaaladan aad soo daawateen ku jira. haddaba qofkii doonaya inuu la soo xiriiro labadan hooyo waxa uu kala soo xiriiri karaa taleefanka ah eber 6 oo ay wadato hooyo Xareedo oo ah labada hooyo midda dhaqaaqi karta isla markaana maamada kale ee dhulyaalka ah gacanta ku haysa. hooyooyinkan waxa ay ku nool yihiin kaam ku yaala degmada Daynile gaar ahaan meel aan sida uga fogeyn xarunta degmada Daynile. maanta innaga ayaa ehel u ah labadan hooyo waxa ayna nooga baahan yihiin in aan u gurmano. fadlan haddii aad kari karto ka qayb qaado u gurmashada hooyo Xareedo iyo hooyo Maryan.